bismillahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan halkani waa Caalam Media 24 kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo kala socotaan warbaahinta Caalam Media barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa xalka magaalada Gaza muxuu ku jiraa hadafkii Israa'iil ay u gashay magaaladaasi haddii ay gaari weysay dagaalkuna uu xal noqon waayay dunidan ay u aragteen dagaalkii xal uunan ahayn maxaa xal u ah magaalada Gaza daawadayaal sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan hay'adda isboortiska adduunka oo loogu baaqay in Israa'iil laga saaro ciyaaraha caalamiga qodobadaas ayaan barnaamijka ka hadli doonaa daawada haddii aad nagu cusubtay YouTube-ka subscribe noo saar taa hore noola joogteen fiidiyowga noo share garee aan ku bilownay 127 maalin kadib oo dagaalo ay ka soconayaan magaalada Gaza iyo duqeymo xoogan oo ciidanka Israa'iil ay geysanayaan weli hadafkii loo galay magaaladaasi dagaalkuna u bilowday lama gaarin dhan kale Falastiiniyiinta oo dagaalku dhankooda ka bilowday ayaa la sheegay in hadafyo xoogan ay ka gaareen taas oo la xiriirta in indhaha caalamka la soo jeediyay inkastoo shacab badan oo Falastiiniyiin ay baaba'een magaalada Gaza ee lagu noolaana laga dhigay meel lama degaan u eg wadamada caalamka ayaa xilliyadii ugu dambeeyay dadaal xoogan ugu jiray sidii lagu joojin lahaa xiisadda magaalada Gaza sidoo kale tan maxaabiista labada dhinac ay kala haystaan loo sii dayn lahaa inkastoo xisaabta ugu badan waxa dhankeeda ka jirta ay tahay dadka Israa'iiliyiinta oo Falastiiniyiinta aan xisaab badan ku fadhin haddana waxaa soo baxaya in caalamku in badan oo ka mid ay ku dadaalayaan sidii xabada lagu joojin lahaa Israa'iil dhankeeda waxaa loo jeeday eedo la xiriira in dambiyo dagaal ay ka gashay magaalada Gaza iyadoo wadamo ka mid ah kuwa caalamku ay maxkamadda adduunka geeyeen dacwad ka dhan Israa'iiliyiinta maxkamadda caalamkuna ay ka soo saartay go'aamo la xiriira sidii lagu joojin lahaa loogana fogaan lahaa xasuuq laga geysta magaalada Gaza baaritaano ayaa ku socon Israa'iil oo la xiriira dambiyada dagaalka ee magaaladaas Gaza ay ka geysatay hase ahaatee hadda waxaa ugu dambeeyay in heshiis ay reer galbeedku soo dharaandhiriyeen laga wada hadlayo sidii xabadda Gaza lagu joojin lahaa duulaan Israa'iil ay damacsantahay inay ku qaado magaalada Rafah oo marinka u dhaxeeya Gaza iyo Masar ayaa sidoo kale digniin xoogan laga muujinaya inkastoo Israa'iil ay ku dhawaaqday inay ka go'an tahay in weerar ay ku qaado Rafah ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu go'aamiyo kuna dhawaaqay in inta Ramadaanka aan la gaarin la soo gabagabeeyo howlgalka Israa'iil ay damacsantahay inay ka fuliso marinka Rafah caalamkuna wuxuu leeyahay musiibo aad u xoogan ayaa ka dhalan karta haddii Rafah weerarka Israa'iil ay damacsantahay ku qaado Iiraan ayaa dhankeeda waxay ka hadashay waxa xal u noqon kara magaalada Gaza maadaama dagaalka Israa'iil guuli ay maleynayso reer galbeedkuna ay ku taageereen laga gaari waayay sidoo kale tan Xamaas oo la tirtiro oo reer galbeedka Israa'iil bay aaminsanaayeen la gaari la'yahay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan oo lagu tilmaamay inay tahay dowladda Xamaas iyo kooxaha kale ee bari dhexe ka dagaala taageerta ayaa sheegay in xalka kaliya ee lagu xallin karo dagaalka magaalada Gaza uu yahay wadahadal dhanka siyaasadda hadalka ka soo baxay Iiraan ee la xiriira in wadahadal kaliya lagu xallin karo dhanka siyaasadana loola jahaysto xalinta dagaalka magaalada Gaza waxaa sidoo kale aaminsan siyaasiyiin badan oo reer galbeed ah iyo kuwa carbeed siyaasiyiin badan ayaa aaminsan Xamaas inkastoo maanta la aaminsan in meesha laga saaro haddana ay noqon doonto in marka dambe miis lala fariisto laguna qanciyo dhanka siyaasadda sidoo kale hay'adda isboortiska Iiraan ayaa ugu baaqday hay'adda caalamiga ee isboortiska ee loo yaqaan FIFA in Israa'iil laga saaro tartamada caalamka hay'adda dhanka ciyaaraha ugu sarreysa Iiraan ayaa ugu baaqday madaxweynaha iyo hay'adda ciyaaraha adduunka ee loo soo gaabiyay FIFA in Israa'iil laga mamnuuco ciyaaraha caalamiga iyadoo loo eegayo dambiyada Israa'iil ay ka geysanayso magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta Israa'iil oo laga mamnuuco ciyaaraha caalamka lama filayo waayo reer galbeedka ayaa si weyn u garab taagan hase ahaatee baaqa la xiriira Israa'iil laga mamnuuco ciyaaraha caalamiga waxa uu noqon karaa mid xoogaysta Iiraan oo wadamada xulafada la iyo si lamid ah hay'adaha iyada taageera ayay garab xoogan ka heli kartaa kaasoo noqon kara in lagu cadaadiyo hay'adda caalamiga ee ciyaaraha in Israa'iil laga mamnuuco ciyaaraha caalamiga daawadayaal qodobkeenu koobnaan uga hadlayna xalka magaalada Gaza iyo Israa'iil oo laga saari karo ciyaaraha caalamiga intaas ayaan ku soo afmeeraynaa